بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعن داوده كسو دوادا مركله iyo live news Somali TV kani waa barnaamijka hadaba ma ogtahay Soomaaliya yaa saheesta taageerada ugu badan ee shacabka barnaamijka ayanu ku eegaynaa dhinacyo kala duwan magacaygu waa Maxamuud Aweys Daacad live news Somali TV studio Kenya oo ku leeyahay ayuu barnaamijka idinkaga imaanaya haddaba intaynu barnaamijka u guda galan akhyaartana dhageysanaya waliba kuwana daawanaya like star oo sheel garay muuqaalkan ha gaaro asxaabta ee adiga oo kale wanaagsan si ay isla markaana ay u noqdaan saaxiibadeeni mar kale kulan wacan ayaan hawada idinka leeyahay guud ahaanba dunida ayaa waxay sidoo kale indhaha ay si toos uga hayaan xaaladaha siyaasadeed ee ka jira gudaha waddanka Soomaaliya xilligan waxaa ka muuqato saasaan siyaasadeed halku siyaasaddu mararka qaar ay wanaagsan tahay halku mararka qaar uu aysan wanaagsanayn ugu horeyntii haddii aan gudagalo barnaamijka haddaba adiguse maxaad u taageertaa dad ka soo horjeeda dawladis isla markaana oo aanan jeclayn horumarka dalkaadii mararka qaar waxaa jirto inaad jeceshahay in dalkaada uu gaaro wadamaha ee horumaray wuu gaari karaa haddii aad adiga dadaashid oo aad hor istaagtid oo aad isla markaa garab istaagtid dawladda haatan ee jirta madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa madaxweynaha guud ahaanba geeska Afrika ugu taageerada badan ee haysta rabitaanka shacabka madaxweynaha tan ilaa iyo xilliga uu ku guuleystay ama uu ku dabaashay doorashada madaxtinimo ee dawladda federaalka Soomaaliya kaasi oo looga guuleystay madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud haatan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu isla markaa uu inta badan la kulmay mucaarad oo isla markaa ka soo horjeeda madaxtinimadiisii maadaama badankii uu soo celiyay bilicda guud ahaanba ee dalka isla markaana uu gaarsiiyo horumar kala duwan haddii ay ahaan lahayd in taageero kala duwan uu fidiyo dadka danyarta ee muddada dhowrkaahi ee lagu dhibaateynayo waddankaasi Soomaaliya waxay soo martay marxalad kala duwan haba ugu badnaatay marxalad kala guura dad qaxooti badan ayaa jira ee ku kala fidxaday wadamo kala duwan oo ay ka mid yihiin Kenya, Ethiopia, Uganda halkii ugu badnaa ee gaaray qaxootiga oo waddanka Kenya dawladda Kenya ayaa dhankeeda iyaduna waxa jirto in mararka qaar dawladda Soomaaliya markii ay isleedahay wasida aynu ku helayno warar ama barnaamijka isla markaa xogtayno aynu ku ogaanayno ay tahay in dadka qaxootiga inta badan loogu baaqo inay dib ugu laabtaan waddankoodii Soomaaliya ayaa badankeed waxay sheegtaa in Kenya ay ciriiri badan ay gelinayso horumarka dalka wasida iyagu ay qabaan dadka shacabka madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo haddii aynu dib idin xasuusino wuxuu soo celiyay dhanka isla markaana bilicda guud ee dalka Soomaaliya haddii ay ahaan lahayd dhisitaanka wadooyinka garoomada ee caruurta ama dhalinyarada ay ku cayaaraan iyo sidoo kale tiyaatarada ee qaranka wuxuu dib u habeyn ku sameeyay dhammaan maamulka wuxuu dib u habeyn wasagu ku sameeyay ee maamulkiisii si isla markaa Soomaaliya ay u gaarto horumar badan isla markaa ay u talaabsato si ay ula tartami lahayd wadamaha kala duwan waxay wadamada isla markaa daraska yihiin ay Soomaaliya tustay in ay wixii rabto ay diidi karto waxay rabtona ay qaadan karto waa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo haddaba daawaday barnaamijka ayaynu isla markaana dhinacyo badan inkastoo aynu ku eegayno haddaba maxay tahay sababta shacabka mararka qaar ay u laba qalbiyeeyaan halku qaarkood qaab qawaacil ay ku taageeraan madaxweynaha waa qaab qawaacil ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha haatan xilka madaxweynaha haatan ee rabitaanka shacabka halka iyagu qaarkoona ay isla markaana si danguud ay ugu taageeraan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo horumarka uu gaarsanayo dalka wali waxayna ku guda jirnaa
barnaamijka isla markaa uu idinkaga imaanayo xarunta telefishinka Live News Somali TV uu ku leeyahay waddanka Kenya. daawade barnaamijka si aad kaga qayb gasho isla markaa fikirkaaga aad kaga dhiibato fadlan adigu noogu reeb qaybta commentiga aaraadaada adigoo ku cabirayo fariin barta isla markaa commentige ee fariin qoraaleedka. qodobka aad isla markaa barnaamijka kaga qayb qaadan karto ayaa haddaba Soomaaliya ma kula tahay in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inkastoo uu tartamayo xilka madaxtinimo ee dawladda federaalka mar kale ma ku guuleysan karaa? haddii ay jawaabtaadu ay tahay fadlan noogu dhaaf, haddii ay jawaabtaaduna ma tahay fadlan adigu noogu reeb halka. yeeso kula tahay inuu ku guuleysanayo mucaaradka iyo waliba kuwa markaasna waa labada dhinac ee mucaaradka iyo isla markaana madaxweynaha Soomaaliya. inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka isla markaana ku qaada dhigina xaaladda guud ee dalka Soomaaliya. magacaygu waa Maxamuud Aweysdaacad. barnaamijkii xiga inagu ku kulmeeno waxaan hawada idinku dhaafeynaa sida ay nabadgeliyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bini aadanka ilaahay baa yiri waxa adduunku keenay bini aadan yaa ugu sharaf badan inaan dhalinyaradeena barno sharaftu waxay tahay is-ixtiraam naftaada inaad ixtiraamtaan naftiina inaad ixtiraamtaan dhalinyaro ma maqlaysaan waxaa luqadda ingiriiska lagu yiraahdaa integrity yaa lagu yiraahdaa